marka Ramadaan oo saacada kooban ka laaban yihiin ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan weydiisanayna inuu nabadgeliyo nagu gaarsiiyo ka faa'iideysigeedana nawaafajiyo si fiican aan uga faa'iideysano bishii oo qarka inugu soo haysa ayaa waxaan doonayaa inaan idin tilmaamo maxaa la inooga baahan yahay bishu inteenan dhalanin oo loo baahan yahay inaynu ku tilaabsano tilaabada koobaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan inaynu toobad keenno ilaahay u soo khaladaadkaynu gallay inaan ilaahay uga soo khaladaadka ka soo laabashadooda si dhab ah qalbiga ka toobad keento xumaantii iyo dambigii aad gali jirtay ka qoomamooto go'aansato inaadan dib dambe ugu noqonaynin tawbadda markaad la timaado liibaan baad ku gaadhaysaa ujeeddadaada adduun iyo aakhiraba wanaagsan ee aad raadinayso waxa loo maro waxa ka mid ah iyo asbaabta lagu gaadho tawbad iyo ilaahay inaad u soo noqoto tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صلاة مؤمنين تيو إذنكو إذن سئد الليبانتان وفي الصعلة سئد الليبانتان liibaantaada adduun iyo aakhiraba waxay ku xidhan tahay inaad ilaahay u soo noqoshadiisa badiso tabaaraka wa tacaala maadaama xilli barakaysan iyo taaco khayraad badan inaan kasbanno aan doonayno qalbiga ayay wax walba ka go'aan isagaana xaruntii ah isagu hadduu daciifo daacadaadu waa daciifaysaa socodkiisu hadduu tabar yaraado khayrkaagu waa tabar yaraanaya hadduu xoogaysto iftiimana daacadii iyo wanaaggii buu macaansanayaa khayrkaagaa badanaya qalbigaaga marka inaad ka shaqayso ood qalbiga hagaajiso ood islaaxiso si aad jaaniskan uga faa'iidaysato qalbigana waxyaalaha lagu islaaxiyo waxaa ka mid ah tawbadda oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi adoonku markuu khalad galo oo dembi galo qalbigiisa dhibic madow baa fuulayso hadduu dembigii ka tago oo alla dembi dhaaf weydiisto oo uu soo laabto qalbigii waa la soofaynayaa waa la hagaajinayaa daxashii baa laga qaadayaa mugdigii baa laga tirayaa iftiinkii awooddii buu soo ceshanayaa si xoog badan buu markaa ku dhaqaaqayaa taacadaa u dhadhamaysa hadduu addoonku khaladkuu galay ku laabto isagoon toobad keeninna madowgii baa la siyaadinayaa iyo dhibicdii ilaa qalbigiisa ay wada daboosho wada gaadho buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraaddeed qalbigaaga inuu khayr ka jeclaado oo khayrka u adkaysto oo soonka u adkaysto oo salaadda iyo sadaqada iyo qaabilo waxay ku xidhan tahay qalbigaaga inaad daahirisood hagaajiso taana waxay ku imaan kartaa inaad ilaahay si dhab ah baynaka wa bayna rabbik inaad si dhab ah ugu toobad haddii aad markii ugu horeysa soo booqatay